maxaa dunida ka dhici doona bay yidhahdeen hadday carabi midowdo hataa muslimka oo dhan maaha waa inta carabta ah waxay yidhahdeen hadday carabi midowdo maxaa soo bixi lahaa waxay yidhahdeen 8 qodob soo socda iman lahaa hadday carabi midowdo الناتج القومي GDP-aanka wax soo saarka waddanku wuxuu noqon doonaa 5 trillion 990 billion dollar buu noqon doonaa يعني intaajkooda maxalliga wax soo saarka marka carab la isku daro wuxuu noqonayaa xawaalay 6 trillion oo dhow sanadkiiba wuxuunba ka badnaan doona qurubay leeyihiin Maraykan iyo China iyo Itixaad Yurubi marka waddanka afraad ee dunida ugu dhaqaalaha weyn bay noqon doonaan dhulka ay degayeen intay leegtahay hadday isku darsadaan bay dhaayeen carabta sheegata 13 milyan iyo 500 oo kun oo kiiloomitir murabbac bay leeyihiin dhul ah sukaanta degani waa imse dadkoodu waa 385 milyan waddanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan China iyo India ugu carab ka badanaysa marka la isku daro waddanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan ciidankoodu intuu leekaanayaa bay yidhaahdeen ciidanka carabeed bay yidhaahdeen waxay imika haystaan haddii la isku daro 4 milyan oo askari 9,000 oo diyaaradood oo dagaal 4,000 oo diyaaradood oo helicopter ah 19,000 oo dabaabadood iyo 51,000 oo gaari dagaal bay haystaan bay yidhaahdeen waa intaynu inagu isku dildilayna una dee la isugu duulayo waa ciidamada dunida ugu xoog badan wax u dhadhow bay soo baxayaan dhulkooda beeruhu muxuu noqonayaa bay yidhaahdeen 84 milyan oo hektar ayaa Suudaan oo qura ka ah bay yidhaahdeen dhul beereed la beeri karo taa macnaheedu waxa weeyaan bay yidhaahdeen Suudaan hadday beertaan 760 milyan oo tan oo sarreenay soo saari karaan sanad kasta 370 milyan oo neef oo ay ku beeri karaan 410 milyan oo neef oo adhiyay beeri karaan 850 milyan oo digaagay samayn karaan waxay yidhaahdeen saxaaraha Liibiya oo qura 8% ka mid ah haddii lagu xidho maxaa la yidhaahdaa solar system haddii lagu xidho 8% saxaaraha Liibiya kaliya 20 milyan oo megawatt hour buu soo saaraya yani dunidu leyd uma baahna saxaaraha ku yaala Liibiya 8% ka mid ah haddii loogu xidho bahalkaasi dunidu waxay nal u baahantoo dhan iyaga sabalay garayn kara bay leeyihiin waxay tilmaamaan shidaalka dunida 24 milyan oo barmiil bay maalin kasta soo saaraan macnaheedu waxa weeyaan waxa shidaal dunida laga soo saaro thuluthkeed ay carabi soo saartaa wax ku dhadhow zakada bay yidhaahdeen xoolahooda 2.5 ka ah xoolaha maxfuudka oo qudhee bangiyadooda yaalla haddii laga bixiyo 29 milyaar 29 bilyan oo dollar oo zakaa baa sanad walba ka baxaya iyagu dee zakada cidda la siinaya ma yaqaaniin xaggii dhismahay ula kaceene waxay yidhahdeen haddii dhismo lagu dhiso sanad kasta waxay dhisi karaan bay yidhaahdaan 25 magaalo oo min 1 milyan oo qof ku nooshahay oo 10 dhakhtar oo midkiiba uu qaadi karo 550 sariirood oo leh 20 iskuul oo iskuul kasta uu dhigan karo 3,000 oo arday oo leh 3 madaar oo 10 milyan oo qof sanadkii ka soo degi karto oo leh 7 jaamacadood oo jaamacad kasta 25,000 oo qof dhigan karto yani xoogga carbeed waa kaa waa carab qurayn ka warramayna muslimka ma warramayno 68 dowladood oo muslima jira 56 ka mid ah ku jira qoladii maalinta dhawey jiraysay tacaawun islaamiga ka mid ah masaaxada dhulku almost waa 230 milyan oo kiiloomitir murabbac marka la isku daro muslimiinta idan ayuha al-ikhwa xooggeena inaynu sida awrta aakhira aragna maahay waxaynu u baahnay inaynu ummadeenna xooggeeda tusno intay dunida joogaan haddaanay ninna u baahnayn caalam islaami nuclear power wuu haystaa oo aqoon-yahan wuu haystaa oo dhalin wuu haystaa oo dhaqaale wuu haystaa oo dhul wuu haystaa oo xoolo wuu haystaa oo wax bini aadam uga baahan yahay dunida ku nooli ma jiro aadanaha kale wuxiisoo dhan wuu ka maarmi karaa haddii caqli uu yimaado